عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقيات شرفت الملك استاذوني دك جوكتان كسر رواد يوتيوب جنال كسرت قروحنا ولاشين زينب حتى جنال كعصبته وحاجة كلها هاي كسر جنالك سبسكرايب كسر لايك كومنتين انت بس كود قدر ان شاء الله بإذن الله الكريم هذا ظهرنا ولا جوكتين لما انتي كسر رواد مر لواد يوتيوب جنال كسرت قروحنا intaa kadib maanta waxaan ka hadli doonaa shan qalad shantaas oo inta badan sameeyno una isticmaalno maqaarkeena especially maqaarka wajiga taas oo dhibaato badan hadhowna iyo damage u keeni doonta maqaarkaaga in hadhow maqaarkaaga uu baaba'o ama bahdilmo badanana qaladaadka noocan aan soo wada shantan qalad waxa aad u sameeya oo inta badan macnaha sameeya oo u badan rag iyo dumarka markii la dhaho waa ragga marka waxaan leeyahay dhamaantii marka adduunka ka joogtaan mistake-idan shanta qalad aan soo wado fadlanka ilaali maqaarkaaga waliba maqaarka wajigaaga ayaan ka hadlayaa face-ka ka ilaali si uu mataqaana face-kaaga mar walba skin-kiisa uu qurux kuugu noqdo okay hadda usoo dhaadhacno barnaamijkeeni qaladka koowaad waa maxay number 1 qaladka ugu horeeya aan sameeyno waxa waaye in aan isticmaalno ama u isticmaalno wajigeena saabuunta aan ku dhaqanayno jirkeena saabuun qabeesta oo kaleeto ha noqoto doof ama ha noqoto kambaniyo kale nooca doonta ha noqotee saabuunta dhagaxa ah ee korka aan ku dhaqno ayaa waxay dhacdaa inta badan inaan wajiga u isticmaalno badanaan taa waxaa sameeya ragga runtiina waa wax aad u fool xun waa in wajigaaga waxaad marinayso iyo jirkaaga iyo mataqaanaa ay isku mid yihiin sababtoo ah saabuunta dhagaxa ah waxay ka samaysan tahay chemicals oo mataqaanaa maqaarka qalajiya sodium to kale ayaa ku jirto marka maqaarkaaga way qalajinaysaa taasna mataqaanaa uma fiicno wajigaaga inay ku dhacdo maqaarkaaga wajiga ka ilaali saabuunta noocaas ah saabuunta loogu talagalay in jirka lagu dhaqdo jirkaaga waa ku dhaqan kartaa laakiin wajigaaga u samayso face wash oo isla mar ahaantaasna maqaarka nooca wajigaaga loogu talagalay marka fadlan iska ilaaliya saabuunta jirka lagu dhaqdo in aad wajigiina ku dhaqdaan qodobka labaad marka u soo gudubno waxa waaye mataqaana faasiliinta ayaa waxa dhacdo inaan badana gabdhahana way sameeyaan markuu maqaarka qalqaleel aad ka aragto kale faasiliina dhuq isku siiyaan ma fahanti marka taasna hadhow dhibaato badan ay maqaarkaaga u keenaysaa faasiliinta dhibaatada ay leedahay waxaa kamid ah in ay isku xirxirayso dulduleelada maqaarkaaga booriska maxaa yeelay faasiliinta waxa waaye petroleum gel waaye waa wax xeer ah noqdo xeer fadhida waa marka maqaarkaaga saas u saartina isla markii maqaarkaaga hore daboolaysaa dulduleelada dhan way xiraysaa taas marka waxay keenaysaa markuu cabaar ah wajigaaga saarnaado in uu maqaarkaaga gudaha ka huur ka yeesho uu ka kululaado kadibna markii aad iska dhaqdid oo kale aad isku aragtid maqaarkaaga oo kasoo baxay finan yaryar oo guduudan oo kaleeto raash inuu kuu yeelay يعني dadka qaar way ku dhacaan adoo faasiliin mas aragtado inta marsata cabaan ma ku iska dhaqdo isku aragtado guduutay marka taasna iska ilaaliya ama finan yar oo guduudan ay ka soo yaaceen marka faasiliinta ma loogu talagalay in wajiga la mariyo wajiga waxa la marsadaa kareemo moisturizer loogu talagalo u qaas ah faasiliinta lugaha iyo gacmaha iyo waxaas waa iska marsan kartaa iyo cirbaha oo kale marka lugaha qaybta hoose qalqalasho oo kale gacmaha oo kale laakiin wajigaaga biliis ka ilaasho inaad mataqaanaa aad ku dhubuuqdo dhuq isku siisid adigoo markaas isle maqaarkaaga qaleelka badan ha kaaga baabiiso waxa dhaca marsataa isticmaasha kareemada moisturizing-ka ah oo loogu talagalay maqaarka in lagu qooyo oo ka samaysan vitamin E aloe vera gel iyo wixii la mid ah iyo saliido kale oo kala duwan marka mar walba kaas soo gado oo wajigaaga u isticmaal qaladka kale aan sameeyno inta badan waxa waaye in aan isticmaalno oo maqaarkeen u isticmaalno kareenka body lotion-ka macnaha kareemada jirka badanaa wiilasha sameeya wiilasha markay soo qabaysanayna saabuunta ay korkooda ku dhaqaan wajigooda ku dhaqaan markay maxaa la dhihi jiray kareen korkooda marinayaanna kee ay jirkooda marinayaan ay isla wajigana mariyaan marka always kareenka bodyga loogu talagalay wajigaaga ha marinin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa wajigaaga inuu ku noqdo sensitive inuu dhibaatooyin kale u keeno maqaarka wajiga mar walba wuu ka dibicsan yahay wuu ka sensitivesan yahay maqaarada kaleeto oo ama jirka kale
marka always maqaarka wajigaaga si wajigaaga dee aad fiir jirkaaga kala duu fin ka soo baxo waxa dee ka soo yaacaan ma kala jecel laakiin wajigaaga always waxa jeceshaa inuu ku ahaado liisho quruxsan mar walba iska ilaali waxa mataqaanaa maqaarkaaga fool xumeyn kara inay finan ka soo yaacaan inuu madow yeesho inuu marka mistake-yada noocan oo kale ayaa keenta inaad kareenka jirkaaga u marnayso dhuq soo qaadatid wajigaaga ku dhabuuqatid ayadana waa shay aad fool xun iska ilaaliya body lotionka bodyga loogu talagalay ee wajiga loogu talagalay taasna waa muhiim iyadana waa mistake-yada kale aan sameyno ragga haba usii badnaadaan qaadka afraad marka usoo dhadhacano waxa waaye liindhanaanta tan gabdhaha aad u isticmaala waxaa dhacda liindhanaanta oo kale marka aan inaan aaminsanahay liindhanaanta inay macnaha midabka furto waa sax wax midabka way nadiifisaa wayna furtaa laakiin mar walba qaabka ugu isticmaaleen ayaa ka muhiimsan liindhanaanta haddaad soo qaadatid iyadoo sideeda gabal intaad soo goosid haddaad mataqaana wajigaaga ku xoqdid oo kaleeto ya taas waa dhibaato weyn ayay ku keenaysaa wajigaaga mana habboona mana fiicna liindhanaanta waxaa ku badan acidka aad ugu badan marka iyada keliga inta toos soo qabsatid oo wajigaaga ku rugtid actually dhibaatay ku keenaysaa dhibaatadaas oo ah inuu maqaarkaaga pH levelkiisa uu noqdo imbalanced macnihii inuu isku dheelitirnaan waayo pH waa idinkaga soo hadlay maqaarka pH ayuu leeyahay mar dhanaan kasoo hadlay video dhanaan kasoo sameeyay dadka aan fahansaneen bilis dib ugu noqdo janaalkayga kana soo daawada micnaha ama waxa loola jeedo pH-ka akhyaar sharaftare markii laga hadlayo skin pH-ka ama cabirka lagu cabiro skin pH-ka waxaa halkaa ka muuqata shaashada from 0 ilaa iyo 3 inay tahay strong acidic halkaas waxaa ku qoran liindhanaanta inay ka mid tahay waxyaabaha strong acidic ah intaa marka laga soo tagana 5 iyo aan dhahay 4 5 6 na waxa waaye inta u dhaxeysa waxa waaye waa skin goalisku waa inta laga rabo maqaarka dadka bini'aadamka meesha laga rabo skin pH skin levelkooda inuu joogo waa intaas 4 5 6 inuu dhaxeeyo 7 waa meesha dhexaadka waaye 7 waxay xagga kasoo ahana oo ah from 8 iyo ilaa 14 na waxaa la dhahaa alkaline soo marka mar walba skin pH scale-ka waxaa la rabaa inuu u dhaxeeyo 4 5 iyo 6 hadduu dhankan kale u gudbo oo macnaha 3 2 iyo 1 iyo 0 uu galo waa strong acidic ma fiicna hadduu dhankan kale u gudbo 8 iyo wixii ka dambeeyana waa alkaline iyadana sidoo kale ma fiicna marka that's why liindhanaantu ay mataqaana too acidic ay u tahay maqaarka markii lagu xoqo la mariyana ay ka dhigto maqaarkii pH levelkiisa inuu noqdo imbalanced ama waxaan isku dheelitirneen so insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahanteen taas marka waa muhiim isagana liindhanaanta intaada soo qabsan iyadoo sideeda unoon inaad isku rugin haddii aad liindhanaanta isticmaalaysid inaad ka isticmaalaysid dhibca yar oo isla mar ahaantaasna aad ku dirsanaysid maas oo kale hadda maas sameynayso kale anigu waa sameeyaa maas haddaan sameynaa face mask oo kale waan ku dhibicsadaa dhowr dhibic ama jeex yariis ah ku shubtaa at the same time macnaha iyada iyo rose water iyo waxa isku darsan kartaa adoo kale mar walba wax kasta u isticmaalaysid liindhanaanta waa inay noqotaa dhibcooyin yar drops qodobka u dambeeyay oo asagana aad ka muhiimka u ah haddaan soo bandhigo waxa waaye in aad wajigaaga ka ilaalisid kana joojisid in aad wax walba aad too much u samaysid like too much aad ku celcelisid maqaarkaaga inta badan way dhacdaa waana sameynaa inaan maalintii kareen ama wax uun maanta dhan wajiga ku celcelin and every day maanta un wajiga aad wax marinaysid wajiga le wax le gabadhan qasilka kama dago gabadhan wajigeeda kareemka kama dagaa lagu leeyahay gabadhan wajigeeda faraha kama qaado why wajiga wuxuu u baahan yahay break neefsi ha neefsado break si maanta dhan wajiga gacanta isku wadin wajiga gacanta maanta dhan abayl iskuma haayo markii lagu leeyahay gacanta wajiga ku haayo macnaheedu ma aha in lagu leeyahay maanta dhan wajiga waxa ku saarnaado qasil mar kareen markii kale mar liindhanaan mar shacfaraan mar cajiin hadii la rabo no abay saas lama rabo ma fahantay wajiga break si wajiga ha neefsado waqti si u sameyso macnaha xilli routine ah oo subaxdii oo kale morning routine iyo night routine u sameyso labada waqti ugu fiican wajiga laga shaqeeyo waa labadaas waqti subaxdii oo kale markaas soo kacay iyo habeenkii markaas seexanays bes labadaas jeer gacanta u qaad inta kale wajigaaga ha iska neefsado faraha ka qaad maanta dhan waxaa marin abaayo maanta dhan qasil ha marin maanta dhan kareen ha marin kii soo dhaca ha marin kii soo booda ha marin
taas maaragtay aad ay u xun tahay dhammaantiin aad u mahadsantiin maanta videogan intaas ku saabsan yahay waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka faa'iideen insha Allah biidnillahi kariim meel kasta dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba soo dhawaada janaalka waa janaalkiina ha ka baqiilina like subscribe-ka iyo share-ka intaba runtii aadan ugu mahadsantiin sida wanaagsan mar walba janaalka ugu xirantihiin intaa kadibna dhammaantiin waxaa idinkaga tegayaa khayr iyo baraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh